وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضية والإسلام مركز توجكتان ومادة هيستوري محمد علي هيستوري فورم 3 waxaynu ugu joogtay ama aynu ku dhex jirnay chapterka la yiraahdo nationalism in Africa waa chapter 5 buuga wuxuu ka bilaabaya 72 ayuu ka bilaabay marka waa nationalism in Africa xorriyadoonkii qaaradda Africa ama gobonadoonkii qaaradda Africa ayaynu ku guda jirnay way xisadii hore yar haddaan xasuusiyo introduction to nationalism. What is nationalism? What do the nationalists share? What are the common bodies of nationalists? What was the African nationalism based on? وسؤالها كايمان كرهتا chapter كهوري. What were the factors that promoted the African nationalism? And what were the factors that later strengthened the African nationalism? intaas ay intii xiisada hore aynu soo qaadanay ku saabsanaa maanta waxaan ka bilaabaynaa ama maanta waxaan qaadanaynaa case study waxa la yiraahdo case study-ga macnaheedu waxaanu tusaale u soo qaadanaynaa qaaradda Afrika meelihii xorriyadda helay meelo kamida iyo sida xorriyaddooda ku helaan iyo processkii ay mareen iyo wixii caqabadaha ku hor yimid iyo wixii ay guula gaareen ayaynu as case study u soo qaadanaynaa waxaanu qaaradda Afrika u qaybin doonaa afar haddaynu afar u qaybino sida jihooyinka oo kale aynu nidhaahno kow xaggaasi waa north xaggana waa south xaggana waa east xaggana waa west haddaan saas oo kale idhaahdo oo idhaahdo dabeedna qaaraddii Africa North Africa number 1 tana waa East Africa number 2 South Africa inkastoo dalna la yiraahdo haddana Southern Africa badhe iyo West Africa afartaa aynu qaybin macni afartaa gobol qaaradda Africa aynu qaybin ma soo wada qaadan karno qaaradda Africa dhamaanteed oo dhowr iyo konton haddaan isla mid kasta sida xorriyadiisa ku helay gala ma kama bixi karno laakiin as a case study waxaan soo qaadanaa only two countries laba dal mid waxaan ka soo qaadanaa West Africa oo Ghana midna waxaan ka soo qaadan doonaa East Africa oo Somaliland ama North Africa marka Somaliland way dambeyn doontaa insha Allah inkastoo buugu soo qadimayo taariikhda sayidka iyo kuwaas asaa halka dambaan geyn doonaa waxaan ka soo horeysin doonaa Ghana marka case study-gan wuxuu ku saabsan yahay nationalism-kii ama xorriyadoonkii Ghana adeega Ghana marka kubadda ku taalo waa idin sheegay oo waxa weeyaan waa West Africa wadan West Africa ku yaala Ghana waxa loo yaqaan magaceedii hore waxa la oran jiray markii la gumaysan jiray Gold Coast wadamo badan baa jira oo qaaradda Afrika markii la gumaysan jiray magac lahaa markii dambe xorriyadda helaan iska bedelay magacii Rhodesia kale iyo Gold Coast iyo waa wadamada magacooda iska bedelay way Ghana dabeedna magac qaatay hadda waa Ghana waa magac bari hore jiray Fontoga lagu dhigtaa boqortooyadii hore Ghana way jiri jirtay way waxay ahayd British colony meel Ingiriisku gumaysto ama maxmiyada Ingiriisku iska leeyahay ama mustacmarad Ingiriisku iska leeyahay ay ahayd waana First African colony mustacmaradii koobaad ee Afrika ee ku taala South of the Sahara Saharaha weyn ee Afrika koonfurtiisa ku taala waa wadamada Southern of Sahara ku yaala ee gained independence xorriyadiisa helay
from the European colonizers ka helay wadamada Africa oo wadankii koobaad ee xorriyadiisa helay wadamada Afrikada madowga ama wadamada Saxaraha koonfurta ka xiga inta waqooyiga ka xigta iyagu waa Carabtii oo Afrikada cadayd marka iyagu kuma jiraan oo bari hore xorriyadooda helaan Masar iyo tusaale ahaan Suudaan iyo imka way ka horreeyeen batan laakiin inkastoo qaar deeg tan ka dambeeyay ay jiraan hase ahaatee Ghana waa wadankii koobaad ee wadamada Afrikada madow xorriyadda helay 1957 ayayna xorriyadooda helayaan bal haddaba sidee ku helaan taasina kiisasta ahaan u qaadanayna way the first nationalist movement dhaqdhaqaaqii koobaad ama ururkii koobaad ee xorriyadda u dagaalama ee ka jiray Ghana waxa la oran jiray Fanta Confederation midowgii Fanta waa dad kamid ah dadyoga daga ama qabaylada daga Ghana ayaa Fanta la yiraahdo which was formed waxa la aasaasay in 1868 the aims of this movement ururka ujeedadiisu waxay ahayd to react in a ka falceliyaan against the British agents wakiilada Ingiriiska ee on the Gold Coast ee Ghana jooga ficilada ay sameynayaan inay ka falceliyaan macnaheedu muujiyaan inay diidan yihiin marka urur kasta markaynu marayno ama dhaqdhaqaaq kasta waxaanu sheegi doonaa guushu gaaray iyo ujeedooyinkiisa ujeedada marka ururkan waxay ahayd to react against inay ka falceliyaan ay ka hor yimaadaan British agents wakiilada Ingiriiska ee on the Gold Coast qaar dabcan madow baa ku jirtay marka waa laga hor imanay this created taas waxay abuurtay waa guushii Fanta Confederation gaaray maxay ahayd Fanta Confederation created wuxuu abuuray awareness wacyigelin among the people dadka dhexdooda macnaheedu inay gobonimadooda u dagaalamaan oo ay ka kacaan gumaysiga la gumaysanayo awareness bay ka abuureen iyo wacyigelin but ceased wuxuu joogsaday ururkaasi in 1872 waka marka ururkii koobaad ee Ghana ka sameysmay waxa la oran jiray magaciisa Fanta Confederation waa midow Confederation marka waa isu tagii dadka Fanta Confederation waxa la aasaasay 1868 laakiin wuxuu joogsaday 1872 only 4 years buu jiray wuxuu laakiin dadka ka dhex abuuray awareness wacyigelin inay gumaysiga ka kacaan oo ay xorriyadooda u dagaalamaan waa ururkii koobaadka waxaana la oran karaa ururadii ugu horreeyay Afrika ka soo baxay ee xorriyadooda u diriraya ama xorriyadu dirirka ahaa laba ururka labaad ee Afrika ka sameysmay Ghana wuxuu sameysmay sanadka 1897 waxa la yiraahdaa Aborigines Rights Protection Society ayaa la yiraahdaa isna dadka Aborigines-ka la dhaba aasaasay was formed it is aim ujeedadiisu waxay ahayd to stop in la joojiyo the land alienation la wareegida dhulka ay la wareegayaan from the colonizers gumaystayaashu ay la wareegayaan to stop the land alienation from the colonizers dhulkan wax soo saarka lahaa deegaanka ku fiicnaa ee dadka Afrikaanka laga qaadayo ee dabeedna loo geynayo ama la siinayo dadka cad ee wax gumaysta ay ka soo horjeedaan qoladan the Aborigines Rights Protection Society its main aim ujeedadoodu waxay to stop the land alienation from the colonizers this organized waxay abaabuleen many protests mudaharaado badan iyo ka soo horjeed badan oo Ingiriiska laga soo horjeedo ayay abuureen iyaguna laakiin saameyn weyn ma yeelan guushooda waxaan ku koobi karnaa protests bay iyaguna abuureen markii koobaad in Ingiriiska lagu mudaharaada magacooda Aborigines waxa la yiraahdaa Aborigines Rights Protection Society waa qolada labaad iyagana waxa la aasaasay sanadkii 1897 laakiin saameyn badan ma yeelan wax guula ma keeneen hayo protests bay keeneen waa mudaharaado Ingiriiska laga soo horjeedo ujeedadooduna waa land alienation in la joojiyo dhulkan la wareegayo ee dadka cad la siinayo in la joojiyo waayahay qolada saddexaad ee dabcan ugu saameynta badan waxay noqon doonaan ururka la yiraahdo
UGCC waana kuwa hore o dhan ka saameyn badan. ururka saddexaad waxaa la dhaha UGCC waxaa loo soo gaabay United Gold Coast Convention. waxaa la aasaasay sanadka 1946. waa late, waa mar dambe marka nationalismka Africa uu kacayba ayuu ururkana soo baxay. ninka aasaasay waxaa la odhan jiray Dankwa, JB Dankwa ayaa la odhan jiray. waa dadkii aqoon-yahanka Yurub wax ku soo bartay uu ahaa isaga laftigiisu. marka ururka UGCC la dhaha waa ka ujeedooyinkiisu way badnaayeen sidii kuwii hore ma koobna. ujeedooyin maxaan ku dhahdaa qoran oo cad bay leeyihin ururka. kow, to protest against, in laga soo horjeedsto the new constitution, dastuurka cusub ee for the Gold Coast gaana loo sameeyey. dastuurka ingiriisku u qoray oo dabcan aan cadaalad ku fadhiinti ayay ka soo horjeedeen. kow. laba, to refuse, waxay diidayeen waynu soo koobaynaa maogtii aymiski. to refuse waxay iska diideen ama in la diido the increase kororhka in price, qiimuhu kormaya for the customers, dadka dee wax iibsanaya macaamiisha ama dadka alaabada lagu qaaliyey ayay ka soo horjeedeen. saddex ama c, ujeedada saddexaad ee ururkan loo aasaasay waa to disapprove, in la diido laga soo horjeedo the destruction, burburka loo geysanayo of the coca trees, geedka kookaha la yidhaahdo oo Ghana waa taqaanaan ama waa maqasheen. waa wadamada ugu horeeya ee geedkaas soo saara, geedka kookaha la yidhaahdo. millions of trees baa ku yaala. marka xanuun baa ku dhacay dhirti kuwa kalena ku faafi karay. marka ingiriisku wax alla wixii ama dhirtii xanuunkaas ku dhacayo uu burburiyey oo aad u badnayd. waana qoladan reer Ghana dhulka iska lahaydna way ka soo horjeesatay arrinkaas. saddexda ujeedada ururkana loo aasaasay waa ururka saddexaad ee Ghana ka jira UGCC. sanadka la aasaasay waa 1946. waxaa aasaasay nin la yidhaahdo Dankwa, magaciisa JB Dankwa ayaa aasaasay. ujeedooyinkoodana waa inagaa sheegayn. ujeedooyin definida bay lahaayeen oo badan. waayahay ururkaa in yar haddaan sii wada actioniskoodii marka la marayo sanadka 1947 waa sanad kadib markuu ururkaasi samaysay. dad badan oo aqoon-yahana isugu tegay. dadka ku biira waxaa ka mid ah Kwame Nkrumah, la soco madaxweynaha koobaad ee Ghana marka dambe noqon doona. became the secretary general, xogayaha guud buu noqonay of the UGCC. this brought, taasi waxay keenaysa oo ururka u saamaxaysa more popularity, in aad loo jeclaado dadka dhexdiisa oo dad badan ay meeshii ku soo biiraan ama ay aaminaan ururkan inuu noqonayo ururkii xorriyadda u keenay. marka la soco labada nin ee garwadeenka ka ah, mid waa aasaasihi waa Dankwa, midna ninka ugu saameynta badan oo Nkrumah la yidhaahdo. Nkrumah in 1948 sanadka 1948 ururkaasi waxay agaasimeen ama abaabuleen boycotts, waxa la yidhaha qaatacad ama diidmo ay ka sameeyeen in all of the country, wadankoo dhan leeyihin ingiriiska diida ka soo horjeesta. boycottska ay sameeyeenna results waxa ka dhashay the results of these boycotts, diidmada iyo qaadacadaha ay sameeyeen waxa ka dhashay go money, lives and properties were lost. halkaa hanti badan baa ku luntay. money, lives and properties were lost. hanti badan baa lagu burburiyey ama ingiriisku ha burburiyey ama qolada kalebe oo dabcan dee maxaan ku lahdaa ganacsiyaa burburaya, mararka qaarkood gacanta la isku qaadaya, hanti baa la burburinaya, waxbaa la boobaya. number 2 ama P, the top leaders, hogaamiyaashii sarsare of the UGCC ee ururkaasi were arrested, waa la xiray. labadii ninba Nkrumah iyo Dankwa labadoodiba xabsigaa la dhigay. British ingiriisku seriously si dhababay considered u tixgeliyeen ama u eegeen the demands, dalabkii of the nationalists, qoladan muwaadiniinta ayadee dagaalamaysa ka soo horjeeda ingiriiska dalabkoodii si cad buu ugu tixgeliyey ama si dhab u eegay. D, increase of waxa kordhay African participation, ka qaybgalkii Afrikaanku way ka qayb galeen in the government, dowladdan ingiriiska. dabcan dee qaar midmadooba marka horeba ku jiray tii baa la kordhiyey, tiradii dadka Afrikaanka ugu jiray ayaa kororday. better economic reforms, isbedelo dhaqaale oo sidii hore dhaamana waa la sameeyey. new constitution, dastuur cusubna waa set up, waa la sameeyey, waa la dejiyey. kii hore waa la laalay in 1951. halkaa waxaad ka arkaysaa
7 qodob oo ah aan idhaahdo 6 qodob oo ah qodobadii resultska ahaa ee ka soo baxay markii UGCC ay abaabushay ama ay samaysay wax la idhaahdo boycotts qaadacada madiid waa kuwa natiijadii boycottiska ka dhashay inta badanna waaba iska positive oo dadka reer Ghana wax u fiican baa ka soo baxayba inkastoo khasaare badan jiray waayahay in 1949 weli ururkii baan ku sii jira UGCC in 1949 a rift halka khilaaf bay ku jirtaa waa conflict khilaaf xurgufde iyo ishayn baa developed between ka soo dhex baxday labadii nin ururka madaxda ka ahaa ee midna la oran jiray Dankwa midna la oran jiray Nkrumah wis qabteen dabeedna ishayn baa ka soo dhex baxday labadoodii talo maxaa la isku hayaa xagga fikirka lagu kala duway labadan ninka la yiraahdo Dankwa isagu waa fikir ahaan waa moderate waxa la aqoon yar socod marka wax la doonayo in ayar la socdo oo aan la degdegin markaaba aan degdeg lagu darin marka ninkaas Dankwa ninka la yiraahdo waa nin moderate and wanted wuxuu rabay a gradual reforms isbedelo ayar imanaya ama qoyar imanaya waa Nkrumah ninka Nkrumah la yiraahdo was more radical oo ka xag jirsanaa radicalna xag jir baa la qofka fikirkiisa iyo mabdiiisa iyo waxa aaminsan ku adag baa la waa radicalists qaarna dadka waa moderate baa la dhayo oo qoyar socod labada abuur alle waa ay ku kala duwanaayeen and demanded ninkana wuxuu dalbanayay an immediate freedom xorriyad degdega inay Ghana hesho labadoodu waa la isqabtay inuu saayelno then Nkrumah resigned wiscasileba xisbigii wuxuu uga tagayba ninka la yiraahdo Dankwa inay isaga asaasay oo gudoomiye ka ahay xisbigayga waa kaaga tagay buu UGCC iskaga tagay waxaan u sameeyay urur la yiraahdo CPP ururka ugu saameynta badan leh xilligii Ghana ay xorriyadeedu u dagaalamaysa waa ka CPP with a lot of support isagoo helay taageero aad u fara badan oo kii horeba ka badan UGCC kana ka batayba xagga taageerada dadka iyo dadka taageersan Nkrumah used wuxuu isticmaalay the press saxaafadu isticmaali jiray and established waxyaalo aasaasay waxa kamid ah sameeyay Accra Evening News newspaper ama jaraa'id la yiraahdo Accra Evening News oo ku shaacinayo to popularize oo ku shaacinayo ama ku soo bandhigayaba the CPP's demands dalabka xisbigiisa he used wuxuu sidoo kale isticmaalay both violent and peaceful means habab mararka qaarkoodna rabshad iyo fadqalalo wata mararka qaarkoodna nabdoon with strikes iyo shaqo joojin uu dadka ka dalban jiray leeyahay shaqeynaa Ingiriiska ka soo horjeesta waa kaas ninka la yiraahdo Nkrumah si wado in 1951 Nkrumah was arrested waa la xiray and while he was in detention intii ku jiray xabsiga ama uu xidhnaana a pre-independent elections doorashooyinkii ka horeeyay xorriyadda ka hor baa la dhahaa were held ayaa la qabtay and the party xisbigiina xisbigiisii macnaheedu CPP xisbigiisiina wuxuu ku guuleystay the elections doorashooyinkiiba decisively si weyn ugu guuleystay isagoo xabsiga ku jira ayaa doorashadan la qabtay doorashadii xorriyadda ka hor baa la dhahaa pre-independent elections doorashooyinka xorriyadda ka hor oo maxaan ku dhahday waa ka qaybgalkii dadka Afrikaanka ay dawladii cadaa ka qaybgalayeen ayaa loo qabtay ma hatii xorriyadda hadda doorashadii xorriyadda lagu helay xisbigiisii isagoo xiranba ayaa kaalin weyn ka qaatay doorashadii isagana inta badan ku guuleystay wixii la rabay dadkii baarlamaanka lagu dari lahaa dawladii hoose interior affairska dabeedna isaga waxa laga dhigay xubin baarlamaanka kamid ah oo waliba gudoomiye ka maxaan ku raahdaa xubnaha baarlamaanka ee dhaqaalaha qaabilsan ayaa laga dhigayba ninkan waa nin Ingiriiska wax ku soo bartay Mareykanka Pennsylvania in jaamacadiisu ahayd baan maleynayaa Nkrumah dabeedna waa dadkii Pan Africanism ku ururkii oran jiray in hore u soo sheegnay ku jiray buu kamid ah in 1952
markuu xisbigiisii guulaystay sanad markuu xidhnaa he was released waa la soo daayay and allowed waxaa loo ogolaaday to join the parliament inuu baarlamaanka ku biiro at the same time Ghana acquired waxay heshayba internal self government ismaamul hoose isxukun hoose oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladii hoose iyo waxaasoo dhan baa idinku maamusha ingiriisku dusha uuna idinka haystee Ghana waxay heshay internal self government ismaamul hoose ayay heshay way Oldon Nkrumah marka xisbigii hore ee danku halkaas inuu kaga tagnayo saameyntiisa hadda way yaraatay dadka xaggan u soo wada wareegeen Nkrumah la soo raacay Oldon Nkrumah had many achievements uu guulo badan lahaa he was unpopular caan kama ahayn in the north xagga waqooyiga among the Ashanti people iyo dadka Ashantaha la yiraahdo labada midna caan kama ahayn iyagu xisbiye gaar ay sameysteen oo u gaara mid MPP la yiraahdo iyo mid kale ay kala sameysteen waad garanaysaa dal aad u badan oo kala ethnics oo kala qoomiyada nin kaliya ma wada taageeri karaan marka tusaale dadka Ashantaha kala yiraahdo kale way ka soo horjeesteen way diidanayeen ninkaas iyo xisbigiisa aad bay uga soo horjeesteen marka Nkrumah wuxuu qaaday process ama wado aad u dheer oo aakhirka ku helayo xorriyadiisa xiisadaas halka ay nagu joogaysaa insha Allah wayna xiisada taa ku xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi